السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا يوم ميل أدجوكتان با وحان ربعنا إذين سو قد بيو مر لباد ومركي لباد معد الفتح الإسلامي في مدينة وجير في كينيا معدك ليلاد الفتح الإسلامي أولا باللابي لسمي كن يساقال بقول أفرتن يسديدي ومعد iyo muassasaad tacliimi ah oo cilmiga laga barto meesha ugu horeysay wadanka Kenya gaar ahaan gobolka NFD madrasadaas walaalayaal ama macadkaas oo waqti dheer soo maray wax badanna laga bartay ummad badan ay ka takharujtay waa waqaf khayri ah oo Ilaahay darti loo sameeyay oo ummadda lagu caawiyo hadda waxa miiska saaran agoon in dib loo furo waqti hore ay xidhmeen bal raba in dib loo furo insha Allah ta'ala dhismihii macadka iyo xarunta oo dhanna waa la dhisayaa lacag tiro badan baa ku baxday horey baan uga hadalay culimada aragtan iyo ka hadlaya kulligood Sheekh Umar Sheekh Shibile Sheekh Maxamed Idriis iyo culimo badan oo kale marka macadkii hadda gabagabe ayuu ku jiraa finishingkii baa la joogaa lacag ilaa 400 oo kun ama u dhiman walaalaha siday sheegeen waxaan rabnaa walaalayaal inaynu wax ku baxsano macadka aynu la dhameystirno ha yaraysanin waxa aad bixinayso shilinka aad bixinaysa ha yaraysanin $100 ha yaraysanin wixii Ilaahay ka soo qaado taleefanka shaashada idinkaga muuqda waxa mas'uulka macadka walaalkeen fadiilada sheekha Dr. Ibrahim Farax Abdallah oo nin sheekha lagu kalsoon yahay gacanta ku haya shaqooyinkiisa khaaska ah oo dhan u joojiyay u go'ay inuu dhiso muassasadan iyo macadkan Ilaahay dartina u wada taleefankiisa iyo magaciisa shaashada waa kaaga muuqda la xiriir wax alla wixii Ilaahay ka soo qaadana ku dir sadaqa jaariye ku noqon insha Allah ta'ala u bixi waalidka u bixi naftaada u bixi reerka in lagu duceeyo dhigo kaydka Ilaahay subhanahu wa ta'ala iyo akoonkiisa wax ka dambeeya gasho insha Allah ta'ala waxaan rabaa walaalayaal inaan mahad celiyo walaalihii cajaladii hore ee duubay iyo klibkii hore ka jawaabay ee dunida daafaheeda jooga inaan u duceeyo iyagana uga faa'iideysto inaan idin duceeyo Ilaahay subhanahu wa ta'ala idin barakeeyo arsaaqda waasica idin kaga dhigo awlaadaha idin kugu barakeeyo Ilaahay guriyihiina ku barakeeyo waalidkiina Ilaahay qabriga rawda min riyaadil janna uga dhigo cadaabul qabrina Allah kaga badbaadiyo gacan midigna Allah idin kaga qaado maalinta qiyaamada jabal Uhud iyadoo leeg Allah idin tuso waana mahadsantiin jazakumullahu khayr wa barakallahu fiikum assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh